dalka Jarmalka waxaa ka dhacday dhacdo dil ah oo argagax gelisay bulshada Soomaaliyeed ee degan kadib markii la xaqiijiyay in nin lagu magacaabo Farax Cali Muuse uu mindi ku dilay xaaskiisa subaxnimadii Axadda. haweeneyda la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Leila Siciid waxaana dilku ka dhacay gobolka Niedersachsen gaar ahaan magaalada Klobenberg. Leila ayaa ahayd hooyada dhashay wiil 2 sano jir ah waxaana uu dalka Jarmalku qaxoonti ahaan kaga soo qaaday bartamihii sanadkii tagay dalka Masar sida ay noo xaqiijiyeen dad ay wada deganayeen magaalada Qaahire ee caasimadda dalkaasi. ehelada ninka dilka geystay ayaa sheegay in Farax iyo Leila ay isqabeen muddo kooban oo 2 bilood ah wax dhibaato aanay ku ogeyn dhexdooda. ninka Soomaaliga ah ee xaaskiisa nafta dhaafiyay ay booliisku gacanta ku dhigeen sidoo kalena waxay la wareegeen wiilka 2 sano jirka ah ee hooyadii la dilay. dilalka iyo dhaawacyada Soomaalidu ay isu geystaan gudaha dalka Jarmalka ayaa sanadihii u dambeeyay kor u kacay waxaana sanadkan gudihiisa dhacay dhowr dil oo murugo ku abuuray bulshada kuwaas oo ay ugu dambeeyeen dil bishii January ee sanadkan wiil dhalinyaro ah uu geystay aabihii iyo weerar bulshada argagax geliyay oo isna bishii aynu soo dhaafnay ka dhacay tuulo dhow magaalada Stuttgart kaasi oo nin Soomaali ah uu qaniyo wajiga ku goostay haweeney xaamilo ah. ma jirto wax faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay dilkan waxaana arinta baarista gacanta ku haya booliiska magaalada uu dilku ka dhacay. Zakariya Jeylani, Saab TV, wararka dalka Jarmalka.